waxaa la rabaa inaad iska ilaalisid biyaha kuleelkana markaa qubaysanaysid iska ilaali biyo kuleel inaad ku qubaysatid sidoo kale wejiga markaa dhaqanaysid aham shay waxaa ah inaad biyo caadi ku dhaqatid wejiga yacni biyo qabowna ma aha inaad wejiga ku dhaqatid biyo kuleelna ma aha inaad ku dhaqatid waxaa la rabaa biyo caadi ah laana biyaha qabowga ah waxaa waaye wejiga ma nadiifiyaan biyaha kuleelka ahna waxaa waaye wejiga waa dhibayaan saliida dabiiciga ay ka dhamaynayaan بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحاب تدمانتين سو دواد جانلك فائزة وورلد maanta videogeena waxaa uga hadlaynaa wejiyaasha laba weji oo kamid ah wejiga qaleelka ah iyo wejiga saliidda leh sida ihtimaamka loo siiyo oo loo daryeelo waxyaabaha la rabo in laga ilaaliyo iyo waxyaabaha u fiican oo la rabo in loo isticmaalo axsan dariiqa oo loo daryeelo yacni sida ugu fiican oo loo dhaqaaleeyo oo loo daryeelo wejiga saliidda leh iyo wejiga oo qaleelka ah wejiyada waa badan yihiin asxaabta laakiin anaka Soomaali haddii aan nahay gabdhaha badanaa waxay sheegaan wejiga saliidda leh iyo wejiga qaleelka ah markaan labadan wejiyan rabaa maanta inaan idinkaga faa'iideeyo insha Allah marka waxaa idin leeyahay asxaabta soo dhawaada inta ugu gudagelin laakiin videoga waxaa idin ku codsanayaa videoga inaan like aad noo saartiin oo like aad noo badisiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin haddii aan ugu cusub tahay marka ugu horeysa aan soo booqatane waan ku soo dhaweynayaa ahlan wa sahlan ku soo dhawo channelka waxa waaye oo qurxin oo wax badan aad ka faa'iido doontid insha Allah channelka subscribe ka dheh gambaleelkana on ka dhigo aad iyo aad ugu mahadsantihiin dhamaantiin soo dhawaada marka asxaabteeda qaaliga ah marka hore waxaa ku bilaabanayna wejiga qaleelka ah marka asxaabta number 1 waxa waaye qofkiisa inuu biyo badan cabo yacni maalinta waxaa la rabaa 2 litir oo biyo ah inaa cabtid ama 8 bakeeri oo biyo ah inaa cabtid maalin kasto yacni inaa routine ka dhigatid si toos ah u cabtid waay biyaha waxaa la rabaa gudaha inaa iska soo qoysid si jirkaaga ama skinkaaga u noqdo skin oo qoyan oo ratuuba leh marka ugu horeysa waxaa la rabaa biyo badan inaa qaadatid oo biyo badan aa cabtid tani shayna waxaa la rabaa marka labaad waxaa la rabaa inaa yacni biyaha kuleelka iska ilaalisid inaa biyaha kuleelka aa ku qubaysanin oo wejigana iskaga dhaqin laana biyaha kuleelka waxaa waaye saliidda oo dabiiciga ah oo cuntada aan ka helno ilaahayna siiyay waxay ka dhamaynayaan jirka iyo skinkabo marka waxaa la rabaa inaa iska ilaalisid biyaha kuleelkana markaa qubaysanaysid iska ilaali biyo kuleel inaa ku qubaysatid sidoo kale wejiga markaa dhaqanaysid aham shay waxaa ah inaa biyo caadi ku dhaqatid wejiga yacni biyo qabowna ma aha inaa wejiga ku dhaqatid biyo kuleelna ma aha inaa ku dhaqatid waxaa la rabaa biyo caadi ah laana biyaha qabowga ah waxaa waaye wejiga ma nadiifiyaan biyaha kuleelka ahna waxaa waaye wejiga waa dhibayaan saliida dabiiciga ay ka dhamaynayaan marka waxaa la rabaa biyaha dhexdhexaadka ah wejiga in lagu dhaqdo talabaadna waxaa waaye saabuunta inaa saabuun aan la isticmaalin laana saabuunta waxaa waaye waxay jirka ka dhamaynaysaa saliida dabiiciga ah wejigana aan loo isticmaalin jirkana aan loo isticmaalin saabuuniya waxa la dhahayaa jiro oo yacni janalka haddii aa hoos degtiin waa wada arkaysin saabuunta waxaa laga samaystaa saabuuniya waa la nafaqeeyaa nafaqooyina lagu darsadaa saliidaa lagu darsadaa haddii la rabo xataa kareemaa lagu darsan karaa si yacni jirka qaleel ay kaaga dhigin saabuuniyada marka asxaabta wax badanaa soo sameeyey kuwa oo wejiga loogu talagalay wejiga lagu dhaqanayo iyo kuwa jirka loo isticmaalayo labadaba waa soo sameeyey gabdhaha nuga cusub janalka haddii ay hoos u degaan yacni way arkayaan oo saabuuniya ay ku qoraan maasha allah saabuuniyada waxa waaye anwaac wa ashkaala hore u soo sameeyey saabuunta caadiga ee marka inta wejiga lagu dhaqan lahayo waxaa fiican asxaabta in lagu dhaqdo face washada marka waa kala yihiin noocyo badan ay ku imaadaan face wash waxaa jira wejiga oo qaleelka loogu talagalay iyo face wash oo loogu talagalay wejiga saliidda leh markii oo yacni face wash aad soo gadanaysid inaa iska fiirsid waaye oo raadisid yacni face washka loogu talagalay wejiga qaleelka ah wejiga marka waxaa la rabaa in lagu dhaqdo face wash ama inaa u samaysatid saabuuniya oo dabiici ah gurigaaga aa ku samaysatid yacni waxyaabo nafaqa leh oo adig ku naasibaya inaa ku darsatid marka saasaa fiican inta saabuunta keligeed wejiga loo isticmaali lahay wejiga dhaqidiisa asxaabta meesha haddii aan uga baxno haddana waxaan gelaynaa waxyaabaha wejiga lagu qooyo oo lagu ratibo sida tonerka oo kale wejiga markii aad soo dhaqdid waxaa fiican wejigaaga inaa u isticmaashid toner si wejigaaga oo biyo u helo tonerka marka noocyo badan uu leeyahay xataa waxaa la isticmaali karaa oo wejiga lagu qooyaa marka wejiga lasoo dhaqdo toner waxaa laga dhigtaa biyaha ubaxa toner dabiici axsan toner waaye toner dabiici waaye aad u fiican oo wejiga kuu qoynaayo dhalaal kuu siinaayo oo kuu qurxinaayo xataa midabka kuu furaayo biyaha ubaxana waa kaliyihiin asxaabta biyaha ubaxa qaar oo waxaa jiraan oo cuntada loogu talagalay iyo qaar qurxinta loogu talagalay biyaha ubaxa markii aad soo gadanaysiin waxaa fiican kan qurxinta loogu talagalay inaad soo gadatiin oo isticmaashiin biyaha ubaxna waxa waaye axsan toner waaye aad iyo aad u fiican yihiin kareemaadkana asxaabta muhiim waaye aham shay waxaa ah kareemaadka iyagana in wejiga loo isticmaalo oo wejiga lagu qooyo oo la isticmaalo kareemka habeenkii iyo kareemka maalintii kareemaadka wejiga qalalan loo isticmaalana waxaa la rabaa inuu ahaado kareem oo ku jiro hyaluronic acid
ama oo ku jiro kareemaadka oo jirsiliinka lagu daro laino kareemaadka hyaluronic acidka waxa way biyay leeyihiin wajiga waa qoynayaan biyay siinayaan sidoo kale kareemaadka oo yacni oo jirsiliinka oo ku jirana iyagana waxa way biyay leeyihiin ratuubay siinayaan wajiga waa qoynayaan marka kareemaadka isticmaalaysiina waxa fiican inuu ahaado kareemaadka biyaha leh oo wajiga biyaha siinayo sidoo kale kareemaadka fitamiinaad kale oo habeenkii lagu seexdo muhiim waaye saliidaha iyagana wajiga in loo isticmaalo waaye sida saliida qumbaha yani saliida qumbaha oo organiga ah maasha Allah wajiga aad u qoysaa sidoo kale saliida looska saliida avocado saliidahaasna waxaa la rabaa in wajiga la mariyo oo lagu masaajeeyo maasha Allah aad ugu fiican yihiin wajiga qaleelka ah waxaa kaloo la rabaa wajiga in loo isticmaalo maaskaadka siba maaskaadka oo borotiin kale laino wajiga qaleelka ah waxa way asxaabta wuxuu u baahan yahay in oo borotiin la siiyo wajiga qaleelka waxa way wajiga oo yacni ciyow duqoobay dhaqso ku duqoobaya waxaa la rabaa in yacni maaskaadka borotiinka loogu roonaado laino borotiinka waxa way waxaa laga helayaa collagen oo ku siinaya wajiga waa ku yareynaya maaskaadka borotiinka markii aad toos u isticmaashid wajigaaga waxa way ku yareynaya waxaa la rabaa maaskaadka borotiinkana wajiga qaleelka in loogu roonaado wajiga qaleelka haddii meesha uga baxno gabdhaha wajiga qaleelka leh waxaa rajeynayaa inay wax badan ay ka faa'iideen wajiga qaleelka ee sida loo isticmaalo oo loo daryeelayo oo nafaqo loo siiyo haddana waxaan gelaynaa insha Allah wajiga oo saliida leh wajiga saliida leh asagana waxa way asxaabta waji oo yacni finan badan oo saliida ay ku badan tahay yacni waji waxa waaye waqtiga kulaylaha waxa way wajiga saliida leh saliid badan oo soo deynaya يعني jawiga markuu kuleel yahay wajiga saliida leh saliid badan oo soo deynaya qabowga marka lagu jirana waxa way markaas oo fiican yahay yani oo haadi yahay waji wuxuu noqonayaa oo yani saliidiisa oo dhexdhexaad ay tahay wajiga saliida lana waxa way tan oo ku fiican yahay waxa way qofkiisa ma duqoobay ma sha Allah laakiinse waxa way dhibkiisa iska badan yani waxa way cakiska oo wajiga oo qaleelka wajiga qalalan waxa way asxaabta qofkiisa waxa way waa duqoobay ciyow duqoobay laana wajigiisa waxa way saliid ma lahan qaleelkiisa zaaid ee collagenkiisa yaraanayo haddii aan lagu dadaalin oo laga shaqeynin laakiin wajiga saliida leh waxa waaye maasha Allah wajigaas markasta waxa waaye ratuuba uu leeyahay saliid uu leeyahay dhibkiisa marka wuxuu yahay inuu finan badan yahay saliidiisa ay badan tahay wuxuu u baahan yahay asagana ihtimaam khaas in loo sameeyo oo si gooni ah looga shaqeeyo marka hore yacni markii aad dhaqanaysid waxaa la rabaa in face wash oo loogu talagalay wajiga saliida leh inaad isticmaashid dabcan waa jiraa face wash oo waxaa jiraan oo khaas u ah wajiga oo saliida leh ina iska fiirsid way face washka markii aad soo gadanaysid aad soo gadatid face wash oo ku qoran yacni wajiga saliida laha loogu talagalay wajiga saliida leh markii la dhaqaayana waxaa la rabaa maalintii 2 jeer in lagu dhaqo face washka yacni wajiga oo qaleelka ah waxa way hal mar inaad face wash ku dhaqdid way maalintii laakiin wajiga oo saliida leh waxa way waxaa loogu talagalay maalintii 2 jeer face washka in lagu dhaqo waxaa jirta hadda ka hor sidaan oo kale inaan uga soo hadlay wajiga dhaqitaankiisa oo dhahaaya wajiga oo qaleelka ah hal mar in la dhaqo way wajiga saliida lehna 2 jeer in la dhaqo way waxaa jirta gabar janal ku xiran inay soo dhahday yani anaka salaadan dukanaa si wajiga hal mar loo dhaqaa yani waxaan ka wadaa markii face washka oo kale marka lagu dhaqaayo maalintii yani hal mar in lagu dhaqo waa ogahay in salaad lagu leeyahay dhamaanteen aan weyse qaadano oo maalintii 5 jeer aan weyse qaadano laakiin markii aan dhahayo hal mar in la dhaqo waxaan ka wadaa yani face washka in hal mar lagu dhaqo wajiga oo qaleelka ah wajiga saliida lehna maalintii waxaa la rabaa face washka 2 jeer in lagu dhaqo sidoo kale wajiga saliida leh wuxuu kaaga baahan yahay scrub inaad u sameysid isbuuci 2 jeer in loo sameeyo scrubka wajiga qaleelka ahna waxa waaye hal mar in loo sameeyo laana wajiga qaleelka aad u qalalan yahay scrub badan ma xamili karo laakiin wajiga saliida leh waxaa la rabaa inaad scrub u sameysid isbuuci 2 jeer waxaa kaloo la rabaa toner la isticmaashid dabcan toner wuxuu leeyahay oo qaas ah oo wajiga oo loogu talagalay saliida leh sidoo kale serum inaad u isticmaashid kareemaadkana waxa waaye muhiim waaye kareem wuxuu leeyahay oo loogu talagalay wajiga oo saliida leh kareemaadka kareemka habeenkii iyo kareemka maalintii sidoo kale maaskaadka muhiim jiddan way asxaabta maaskaadka wajiga aad iyo aad u qurxiyaan siba maaskaadka oo dabiiciga ah in la marsado waaye oo joogto loo isticmaalo wajiga saliida leh maaskaadka loo isticmaalo waxa waaye waa badan yihiin iyagana oo naasibaya yani wajiga saliida leh sida aloe vera oo kale aloe vera aad iyo aad u qurxisaa wajiga saliida leh aad u naasibeysa waxa kaloo aad ugu fiican ukunta qaybteeda cadda ah ukunta qaybteeda cadda ah waxa way wajiga saliida leh maaska looga dhigtaa dulduleelka oo wajiga saliida leh waxa waa soo toobaysa waa soo yareynaysa sidoo kale waraangada iyadana waraangada wajiga saliida leh maasha Allah aad u naasibeysa dulduleelkay soo toobaysa liishay ka dhigaysa way soo yareynaysa dulduleelka wajiga waxa kaloo maaska looga dhigtaa zabaadiga oo kale yoogadkana maasha Allah tabarakallah waxa way zinc uu leeyahay wajiga saliida leh aad u naasibaya bakteeriyada ku dilaya nabraha u fiican yahay waxaa kaloo aad uga fiican qajaarka iyo liin dhanaanta sidoo kale boorashka waa u fiican yahay boorashkana maaska looga dhigtaa
maasha allah tabaaraka allah. markii maaskaadkaas yani si toos loo isticmaalo oo si toos loo marsano waxa waaye wejiga saliidiisa way qafiifaysaa, waxay noqonaysaa saliid yani oo dhexdhexaad ay noqonaysaa. nabrahan waa ka qafiifayaan, waa ka yaraanayaan. wejiga saliidda la asxaabta sida yani wejiga qaleelka ah la rabo in biyo badan gudaha laga soo qaato. wejiga saliiddaasna waxa waaye nabraha banaanka ka soo baxaayo gudaha ku xiran yahay asagana. waxaa la rabaa yani in yani cuntada qaar iska ilaalisid sida buharaadka xawaajiyaasha oo kale, shukulaatada oo kale, shukulaatooyinka. cuntooyin badan oo waxaa jiraan oo markii aad cuntid oo ku sababaya in wejigaaga oo finan yeesho. marka waxaa fiican cuntadan in la iska fiiriyo, laana waxa waaye nabraha oo wejiga kasoo baxay waxaa dhici karto cuntada cunaysidna inay ku sababaan. marka waxaa la rabaa in la iska fiiriyo. waxaan rajeynayaa in yani gabdhaha wejigooda saliidda leh iyagana ay ka faa'iideen videogan maanta oo uga hadlayay wejiga oo saliidda leh iyo wejiga qaleelka ahba. aad iyo aadaan u mahadsantihiin, aad kaga mahad celinayaa daawashadiina quruxda badan. wejiga qalalan iyo wejiga saliidda lehba waxa waaye ihtimaam qaasi u baahan yihiin. marka waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin yani aa wada fahamteen oo ka faa'iideen. waxaan idin leeyahay ku dadaala wejigiina, wejiga baasaboor waaye muhiim waaye wejigeena inaan ihtimaam aan siino oo ka wada shaqeyno. aad iyo aadaan u mahadsantihiin, aad kaga mahad celinayaa daawashadiina quruxda badan, la socodkiina, كومنتياشين قروح بدن أو دعاء أمان تلاقي سوى قرتين هذه أدو مهتسنتين وحان إذن الله جزاكم الله ألف خير إن شاء الله وحانو بلان أي فيديو قدام بي وحان إذن كتقايا خير بدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.